anigu waxaan soo jeedin lahaa muddo badan baa imika oo muddo fara badan ayaa imika bardigaan ku taagnaa qayladu ka yeedhaysay oo dad badan oo guurtile oo cuqaal leh oo culimo laba la tegay wuxuuna hadday fuli waayaan ama xoog waayaan waxba ma qabtaan haddaynu maanta tagno oo ayna waxba ka fuli karin waxba kama qaban karande waxa weeye xukuumadda waxa laga doonayaa inay barnaamij cad ka yeelato gobolka Sanaag awood military loo baahan yahay in meeshii guutooyin ciidan la dejiyo wixii wax dila markiiba la qabto la dilo in guurtu talooyinka soo jeedisay iyo cuqaash iyo salaadiinta go'aamada ay soo jeedeen inay fulaan go'aamada la soo jeedinaya ee dadka walaalaha lagu kala dhexdhexaadinaya haddaanay fulayn waxba kama qaban karandayno go'aamadu waa inay fulaan waxa la baahan yahay intaasoo 30 gaari la dhigo intaasoo la dhigo ciidana wixii wax dila markiiba loo dilo oo aan jeelka lagu soo xarin oo ninka wax dila aanu baxsan karin oo go'aamada ay guurtu gaadho ee salaadiintu gaadho ee labada beelood gaaraan ee la saxo waa inay fulaan midda kale waddanka dhibaatooyin fara badan baa la soo maray dadku waa walaaloobay dhibaatooyin inta ka badan baa dhici jiray hargeysa jirti maraan la mari jiro shidad odayaasha laga hel jiray haleeyay laga hel jiray aan la mari jiray wixii waa laga soo gudbay dawlad baa yaalan maanta sabab jabhad inuu asaasmaan waxaan u arkaa taal darada dawladda inay tahay yaa wadiirada dawladda waddanka mar haddii bariya galbeed baa jabhad baa laga asaasay berina burca ka asaasay saad ma la ka asaasay waxba jiri maaya dawladdu wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynuhu waa in waddanka hamrashada ka daaya dadkana cadaalad sameeya waddankuna hamrasho kuma gelayo wixii la fuliyo waa in la qabtaa oo la qabtaa waa inuu madax dhaqameedka cuqaash salaadiinta gobolka Sanaag waa inuu dhageystaa wanaag hadday wadaan waa inuu wanaag ka dhageystaa oo wanaag ku raaca dadku way saamaxaa dadku way safiyaa wanaag way laakiin waxaan aqbal karin marnaba Soomaaliland ba jabhad ka asaasmaya ciidan ku haysto maxamed xaweena ka imaan aynu adduunka kula gorgortameen dadku waxa weeyaan dawladdu hadday dadku ay wanaaga diidaan oo ay jabhada sameystaan iyadoo adarkaysa waxa shan intaas oo milyan arday ba jaamacada dhiganaya boorama ka dhiganaya waxa ka dhiganaya dadku tabashadooda waa la dhageystaa madaxweyne waa la hadlaa waxay cabanayaan waxba looga sheegaa imika laakiinse reer hebel u dir jabhad baa meel ka horseer waxa socon maaya xukuumad baa tahay waa inaad awoodda ka qabsataa midda kale doorashooyinkii way soo dhaweeyeen dadka shaqeynta ka hadlaya dadku way dhageystaan wixii macquul ah in looga jawaabo laakiin marka imika madaxweynuhu warqad inoo soo gudbiyo inaan xusbiyada hore 8 bilood kordhiyo 7 bilood kordhiyo waa in la qiimeeyo doorashadu waqtiga ku dhacayso waqtiga rasmi oo daraasad weyn lagu sameeyaa dabadna muddo la gaadha aan cidna cid yeelin xusbiyada yeelin gol yeelin dada wuxuu ku qabsoomaya waa inaynu qabanaa